السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقة اسكو سو نقد وناagsan waxaan rajeynaa idinku caafimaad qabteen inaan dib iskugu soo noqonay wali waxaan ku gari jirnaa channelkay uga barateen waa family care skin care iyo hair care wali waxaan ku gari jirnaa falaqaynta qoyska ama family care saa u taqaanid haddaba waxaan wali mawduucayna waxaan ku jirnaa si xun wax u fahan si xor oo la ka daran ama Soomaalida si xun ayay wax u fasirtaan haddaba khiyaaray qaybtii labaad waaye ayaan rabaa inaan dib uga hadlo qaybtan waa qayb xasaasi ah marka karbaashna waa la socdaa marka qaybtan waxay ku saabsan tahay qaabta yani dadkii si xun wax u fasirtay videoga qalad u fasirtay ayay ku saabsan tahay haddaba haddaan nagu cusubtahay fadlan subscribe ta naga hiloowin adigana free ku tahay maadaqna dhiirigelin ayay u tahay haddaa hore noola joogtana like iyo share waa xaqiina asxaabay waxaan rabaa marka inaan ka sheekeeyo dadkii videogii oo aan meesha community-ga laga soo sheergareeyay dadkii si xunka wax u fasiray dadkii marka laba qayb ayaan u qaybinaynaa labada qayb aan u qaybinaynaa qaybna waa qayb qurbo jooga qaybna waa qayb wadankii joogta qaybta wadankii joogta ayada karbaash kala u haya xagga noo dhig waa usoo horeynaa qaybta qurbaha joogta saddex ayaan u qaybinaynaa saddexda u qaybinaynaa horta waxa waaye qayb waa qayb message sidii loogu talagalay u qaatay oo ka feejignaado ilmahooda fiiro gooni u yeeshay waayo ulajeedka laga lahaabo waa ulajeedka yahay war waxaan ilaahay kuma darnaade waxaan waa jiraan iskuulada ka jiraan ilmihiina la socda oo feejignaan gooni u yeesho qaybtaas waa qaybtaas halkaas aan uga baxaynaa qaybta labaad soo labaysa waa qayb ayaga waxa la yiraahdaa reviews raadis ala dhahaa waxa way shaqadoodaba waxay tahay views war maanta see views ku heshaa videoga yaa ku waxda kow qaladka gashay videoga aniga hadaan rabo inaan video soo share garaysto YouTube email kas waa soo dhigan karaa views waa ku raadsan karaa laakiin adigu videogi waaba qaadatay waa soo gashatay reaction qaldan baa ka bixisay waxa waaye videogi baa waxa rabtaa inuu views badan ku yeesho ma ogtahay videoga maanta aniga hadaan report gareeyo waayo videoga amar uma qabo qof qurbo jooga inuu intuu soo qaato qof kale video inta laga duubo ama qof ha u soo diro ama asaga ha iska duube inuu social media ku kala kacsado inuu qofka raalli ka ah hadda aniga videoga aniga inta soo share gareysa aniga iga koobi gareysatay ha waxaas waa wax social media gaala laakiin inta video aniga aan social media inta laga waayay adiga inta soo duubatay aad qaadatay in aad YouTube-kaaga ku kala kacsatid ama TikTok-kaaga ama Facebook-kaaga ku kala kacsatid ma ogtahay haddii aan ku report gareeyo in automatically inaan laga xiraayo social media in laga xiraayo ma la socotin aniga ma sameynayo dacwadaas iyo qajajacdas ma galaayo laakiin wax aan lagu amrin ayaa inta qaadatay ayaa ku kala kacsanaysa videoga waxa ku kala kacsanaysa TikTok-kaaga waa dadkaas qaybta waxa la yiraahdaa qaybta views raadiska qaybta saddexaad oo soo hartay qaybta saddexaad oo qurbo joogta waxa waaye videogii reaction-kii loogu talagalay kamay bixine reaction kale ayagoo dana gooniya ka wata ayay ka bixinayaan videoga dadkii dad waxaa jira si fiican uga soo hadlay oo waxa waaye waalidiinta ayagoo wacyigelinaya waayo qofkaas waxa laga yaabaa qof dad badan inay ku xiran yihiin sida shaqayaal badan arkay war heer dhibkan waa ka jira hooyooyinka dhibaataysan dhibkan bay qabaan ilaah kuma daraaday waxaan dhibaatada ka jirta ilmihiina ilaaliya waa kana ilmihi dadka Mareykanka dhibaatadaas ayaa soo foos saartay ilaaha naga qabta ayagoo duceynaya waa qaybta wanaaga qaybta xumaanta videoga reaction qaldana ka bixisay oo waxaan arkaa dhahay oo maamadan qalbiga Allah u qaboojiyo cunugeeda laga qaatay 6 sano jira maamadan qalbiga Allah u qaboojiyo cunugeeda kaliya la siiyay yaa ku yiri cunuga laga qaatay video bahalkan akhbaar yara waxay ahayd ilmaha cunug kaleeto uu rabay inuu cunug kale u qoro macluumaadii ay qortay macna gooni ay u sameysay heart u sameysay ilaa kuma darnaaday ay loof dhex gelisay oo calaamada raambiga ku sawirtay ayay ahayd waxa dhahday cunugii innocent-iga ahaa ayay ka qaaday yani maamadan ilmo waraaqad waa isku qoraan qaansan roobaadkanna waa iska caadi ilmada waraaqad waa isku qoraan hooyadan cunugeeda ayay innocent-iga ka qaaday war aniga cunugeyga innocent kama qaadin cunugeyga waraaqad hadduu qoro waa iska caadi normal waay cunuga waraaqad hadduu qoro waa okay hadduu asaga calaamada raamboog u sawiro waa okay laakiin macallimad ayaa waraaqada ilmahan qoraalkan qortay haartigan u sameysay ilaa kuma darnaaday calaamadan waxaysay kow calaamada qaansan roobaad inay tahay calaamada fiiriya calaamada ya qiil u sameynaysid calaamadan waa qaansan roobaad iyo color waa iska color iyo fiiri macallimadii aniga inta markaan duulaanka ku qaaday itiri calaamadan waa iska calaamad iyo adiga maxaa isdhaartiin qaansan roobaadka dadkan ayaga qorteen ayaga dhehen anaga iska le calankan waxa way calanka arkaysa fiiri calankeena Soomaaliya waa blue buluuga anaga qabsano anaga sheegay waxaan dhahay buluuga waa oo xididta ku sawiranta waa Soomaaliya calan kasta waa color
laakiin qof walba calanka asaga kalarka asaga qaatay oo wuxuu ka dhigtay calan ka dhigtay dadkana ayaga qaatay rawaadka qaateen oo kalar ka dhigteen wadankeena markii la joogay wax macnaa ma suubinayn hadduu cunuga u sawirana sidoo kale wax macnaa ma suubinayn laakiin markay macluumaad qiimo u yeesho waliba waqti xaadirka lagu jiro qiimo weyn ayay leedahay aniga cunugayga la iga dulmiyay kuma dhihin kaniiniyaala la iga siiyo kuma dhihin war aniga dhibkaan baa isoo gaaray oo kuma dhihin oo waa kan ay ku firsa kuma dhihin waxaan ku iri ilmaha buugtooda baara waraaqadan ilmahayga ayay cunug macluumaad u qortay asaga wax macnaa uma arko laakiin ilmaha qaabkan ayaa loo diyaarinaya Soomaaliya ka feejignaada ayaan anigu iri ilmaheena waa kaas waxaan cadeyntaan waxay tahay in ilmaheena waxaan loo dhigay waayo marka aniga meesha ka hadlayay waxay la soo istaageen kuwii boardka sharciyada bedelayay waxaad ilmaheena ayna raali ka ahayn walaama dhigayo anigana meesha marka taga hooyo xamaasaysana aha waxaan iri war waxaan ilmaheena waa loo dhigay iyo Soomaaliya ayaa been inaga sheegin marka waxa way inaan marka videogi aad macna kala u suubisid oo aniga dad baan leeyahay ehel baan leeyahay dadku way soo wacayaan cunugaaga miyaa laga qaatay oo cunuga aabiis baa la wacaya aniga yaa la soo wacaya maanay ayada la dhahayo dadkii dadba ku walwalay ehel baa leeyahay asxaab baa leeyahay friends baa leeyahay marka ina igu xad gudubtiin oo aniga hadalkii aan community-ga la share gareynaayo war waxaan dhibaatadan aan ka jirtay Soomaaliya ka feejignaada ina macna gooni inta u yeeshaan oo haddana aad soo share gareysaan waa qalad halkaasaan taas uga baxaya Soomaaliyay waxyaabaha aad qaladka u fasiraysin reaction-ka inay dambi kugu tahay sama ogid YouTube-ka aad ku kala kacsato damaanta lacag ku heshay lacagtaas waa xaraan waayo aniga been baa iga sheegtay laakiin haddii sidii loogu talagalay inta dhageysatay sidii loogu talagalay aad u fasirtid qof wanaag wadaad tahay ما فهمت أنا كان وحلا جاي أمريكا فيديو أركو قف كان وأنا جوا هلا عفسي كتا لكن هذا أنا نيجي تكون قفت حوالها حرانة كتا مركب عوال Soomaaliya dadka sida qaldan warka uga fasiraysid iska daahay halkaasaan ku dhaafay waxa ku soo haray dadka Soomaaliya jooga badana Facebook u badayeen horta ayaga reed YouTuber na maahan TikTok na maahan badana Facebook u badayeen waxa arkaysaa hooyooyinka dadka America jooga ilmahooda lacag dhaafsiisadeen wadankii ma imaadin ilaaha kuma darnaade ilmihiina ya Mareykanka dadkan ayaga inayma imaan idinka u tagteen idinka maxaa ka doonteen anaga ay dacwad noo qabsanayaan halka anagu markay qarax ka dhaco markay abaara ka dhacaan hay'adaha lacag ay bixiyaan ka badan ayaan qurba joogta ay bixisay aruurisa qurba joogta waxay u qaybsamaysaa qof duceeya oo masaajidada ka duceeya qof waqtigiisa ku bixiya inuu dadka walaalihiis wax u qabto lacag soo aruuriya qof lacag jeebkiisa ka dhiiba ayay u qaybsamaan laakiin idinku maxaa tihiin abaalaawo inaad tihiin maxaa qabtid meeshii anaga aad noo duceyn lahaydeen ilaa lacagna nama taraysiin xoogna nama taraysiin meeshii aan noo duceyn lahaydeen Facebook meel kasta gal commentayaasha akhriya ha ilmiina lacag dhaafsiisan lacagta dhaafsiisan maxay tahay yaa lacag lagu siiyay anaga ilmiina xoogeena siina dhidhirkina adiga fiiri qofka Soomaaliga jooga wuxuu ka faanayaa inuu intuu gaari gacan qaato uu xamaali noqdo oo uu lacag soo sameeyo ka faanaya laakiin kama faanayo aniga oo maandeeqa maanta lacagta waxyaabaha aan ka shaqeeyo taraageeda ayaan raacaa dusheedan ku qaadaa 150 pound or 160 pound almost 80 kilo ama 90 kilos ayaan dusheeda inta ku qaadaan taraaga ku raraa kama xishoonaysa lacagta aniga soo xamaalo oo xooggeeyay dhididkayga soo xamaalo inaan adiga ku soo diro kama xishoonaysid laakiin waxa ka xishoonaysa inaa gaari gacan qaadatid adiga aad soo xamaalatid waxa laga yaabaa inay iga xoog badan tahay waxa laga yaabaa inaan nin raga tahay waxa laga yaabaa balka inay iga caafimaad badan tahay waxa laga yaabaa inay iga waqti badan tahay waa ka xishoonaysa inaan xamaalo noqdeen laakiin anigu kama xishoonayo inaan inta aniga soo xamaalo dushayda aan ku soo saaro war rabbul kacba aniga shaqadan ka shaqeeyo habeenkii xamaali waay hadaa rabti waa inii soo gelinaya intaan baxaan taraageeda dadka taraageeda wata ayaan raraa oo aan intaan qaato ilaa kuma darnaadee bokusada 1 pound 150 pounds ama 80 kilos intaan dushayda ku qaadan taraaga ku raraa lacagtaas aniga aan soo shaqeeyay ayaan adiga ku soo diraa adiga hadaan u dir marka abaara ku qabsadan ku bixiya yani waa sadaqo laakiin fiiriya adiga wixii aniga aan ku waxaynayo oo aan ka xishoonin adiga waa ka xishoonaysaa markaas waxa igu bedelaysaa markuu adiga dhibka ku hayo ama lacag ku bixiyo ama waqti aan kugu bixiyo ama duco aan kugu bixiyo laakiin adiga markuu dhibka haysid waa ku farxaysaa markaas waxa leedahay allah ma soo baxaan yes maxay tahay yes naagti Lady Diana ay u noqoteen gabadh waxa la dhahay naag Ingiriiska joogta boqoradka hadda way baqtisaa la dhahay waxa la dhahay waxay tagtay Afrika waxay u tagtay dalxiis u tagtay markaas waxa aragtay dad masaakiin oo rooti saf ugu jira markaas ay tiri dadkan maxay suubinayaan markaas waxay ku dhahday dadkan rooti saf ugu jiraan what ay tiri maxay rooti saf ugu jiraan may cake cunaan ay tiri dad ayagaba rooti waayay ayaa waxa lagu leeyahay may cake cunaan
bal jasjaska halkaas ka jasjaska badan ma jiro idinkana marka dad waayay ilmahooda waxay ku badan war aniga haddaan maanta lacagtan Afrika ku qarash garayno haddaan maanta aruusan lahayn aan ciyaalkeena gelin lahayn ama aniga is gelin lahayn maanta America iska dhaafay Europe iyo America inqalaab aan ku qabsan lahayn laakiin wixii aan shaqeyno anaga aan soo xamaalno ilmaheena intaan ka soomino ayaan idinka inii soo dirnaa aan fiiriya macnaheeda adiga haddii lacagta aan xoolahayga aad cunin qof walaalka ayaa cuno dadka badankeeda Soomaaliya dadka ku nool boqolkiiba 95 waxa qurbaha laga soo diray ku nool yihiin marka runta la isku sheego waliba especially dadka Mareykan ku nool lacagta soo diraan ay quutaan aniga kale waxaan soo diray quutaan ma ahan inaan waxaan dirna aan sheeganayna ma ahan laakiin marka tan oo kale na qabsato at least waxay ahayd inaad noo duceysaan oo ducada nagu soo kaalmeysaan asxaabay marka waxa waaye dadka Soomaaliya jooga karbaaskaas waxa waaye aad baad u gardarantiin waxa waaye anaga duco aan ku leenahay ma ahane jasaar inkuma lihin inaad anaga nagu jajistaan inkuma lihin Soomaaliya gardada joojiya xaq darada wada joojiya waxaan wallahi billahi inaan dambaabaan ka baqaya laakiin waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay nabad ooga dhalaladay xaq darada dadka qurbaha jooga ee ka galayaan ayay nabad ooga dhalaladay qof ku dafiro inta lacag u dirtid qof markuu dhibaato ku soo gaarto kugu jajjeesa qof ku caaya marka lacagta 2 shilin u dirayso xooga aabeesho waa lagu caynaya war anaga wala Soomaaliya waxyaabaha ay fiiriya qof Soomaali joogo in xoolo qaldhe xoolo in qol anaga xoolahiyan qalnaa sida anaga dadkeena Soomaali u caawino ilaahay kuma dar waan xamaalnaa oo xamaaliga dusheena ku qaadnaa oo ilaahay kuma dar masquulahan dhaqnaa oo hoteelada kila waxa xaga shaqeysa housekeeping baan ahay housekeeping ka maxaa waay housekeeping ka lagu sheegaa maxaa waay hoteelada masquulaha ka dhaqnaa oo guryahan dhaqnaa oo ilaahay kuma dar sariiraha gogolnaa housekeeping ka lagu sheegaa waa shaqaalihii aad qabsan jirteen dharka inii dhaqi jiray ayaan nahay anaga idinka waa ka faanaysiin inaan inta suuqa wareegteen dhar dhaqo ma rabtiin waa ka faanaysiin waxa rabtiin idinka inaan lacagtan anaga idin soo dirno inay qof kale shaqaale ah ku qabsatiin dharka u dhaqatiin anaga laakiin dharkaas aan dhaqnaa dharkaas lacagta aan ka keenno aan idinka idin soo dirnaa والله ما أنت حناقة إذا هذا الشيء لعكت لك كأنه housekeeping كل شيء جاي وشقاله أركيسين إن حمالي كل شيء جاي وقارة جعنك وكان حمالي كانوا حلنا جو حن كشقينا إله كم درنا هذا محي مقع الله صبي محي warehouse كشقينا warehouse كم حواي وحمالي واي كل housekeeping محواي وشقاله واي محي كو صهري إن وح كشقينا hospital CNA با كشقينا CNA كم حواي دايبر كان بدلنا حار كان دقنا كذا دقنا هبرها وايوينك ولا بدي ذيك الإسلام كفاني سين أنا جا هبرها قال هذا أيام aan dheebarada ka bedelna lacagtan dheebarka ku soo bedelno ayaan idinka inii soo dirnaa ilmahani dadkana inta ka baqilno oo gurigeena ka baqilno ayaan idinka inii soo gelinaa markaas idinka marka noo duceyn lahaydeen waxaan dhaysin ma Soomaaliya soo baxaan Soomaaliya lacagta ku aadaan xagee ka geenayna oo dhibka idinka mar walba dhibka in ku dhaca anaga noo soo qeylinaysin xamaaliga waa ka faanaysin xoolaha ina qashin waa ka faanaysin janitoriya ina clean up ina samaysin waa ka faanaysin dharka ina dhaqdin waa ka faanaysin wax walba waa ka faanaysin laakiin anaga wax walba dusha inta saarana ayaan waxaan anaga aan soo shaqaysan inii soo dirnaa marka Soomaalida halkaas karbaadkaas waa karbaaski aan ugu dambeeyay inay soo dirahay Soomaalida dadka Soomaaliya jooga especially xaq darada aad wadiin joojiya dad ba hada waxay doonaan anaga miya lacag noo soo diray war aniga hadaan ku soo dirin gabadh asaaga ayaa ku soo dirto haduu soo bahalka ishaq gabadhaas ay isku soo dirin wiil oo bahalka ishaq oo ilmihiisa ka soo miyo cuntada ku soo diro runta markii laga hadlo waxa la anaga ma xoolana siisaa maandeeq kuwa waxa arkay dhahay xoolayaa siisa no aniga hadaan xoolo ku siin gabar kale asaaga lacag ka sugata wiil asaaga lacag ka sugata oo ilmihiisa meesha ku dayacan yihiin lacagta ka sugata oo talaaglaha gurigiisa mashquul ma haysto taraaga dhaxdiisa ayuu ku dhaxkaadiyaan dadka talaaglayaasha gurigooda ka maqan yihiin 3 bilo 4 bilo gurigooda ma arkaan jidka ayagoo saaran qabowga aragta maaniska highway to highway barafka ayagoo xabadna u jeedin ayay soo shaqeeyaan markaas waxay weynayaan sometimes reerkooda tigid ay ku aadanay weynayaan waayo lacagtaas ay soo shaqeeyeen ayagoo taraaga ku dhax kaadinayo oo ku dhax saxaroonaya oo ilaa kuma darnaaday qabowga aragta taagan oo ilaa kuma jidka wada sometimes gaariga bodboodayo oo hawada xiran tahay ayuu qofkii dhax seexanayo qof kalena waa wada haye dhibkaas iyo wadna kurkurkaas ayay ku nool yihiin lacagta ku keenan lacagta adiga aad qaadanaysid ama ninkaaga aad ka sugaysid oo Afrika jooga Mareykan jooga ama aad naagtaada ka sugaysid ama aad walaasha ka sugaysid ama aad walaalka ka sugaysid walaalka ama waa taraagle oo kaadido meesha ku dhax kaadiya waqti fiican ma seexdo walaashana waa ama waa shaqaale oo bahalka ishaq ala waa xamaali ama hilibka qataa waa xoolo qal ama waa shaqaale bahalka ishaq masquulaha dhaqla lacagtaas ayay Soomaaliya ku nool yihiin boqolkiiba 95 Soomaaliya lacagtaas ku nool yihiin markaas anaga meesha nooga duceyn lahaydeen aan dhihin war dadka qurbaha joogo war masaakiin ha loo naxariisto war dhibkaan baa haystay aan u duceyno war aan isku imaano war aan u duceyno meesha dhihin lahaydeen ariya ma Soomaaliya kaysatiin ariya ma Soomaaliya soo baxdeen ariya marka hore xaa ka doonteen ruuxaas aqli ma ahane anaga in kama istaahilno inaan nagu jejeystiin waa inaan noo duceysiin
إنا نقول جستين أنا إن كما ساهلون وإنا الدعاء نقول سو كبتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت فيديو لما إذا كل مدون أصحابي أنت صار واحد حقيقي يقول قاطع وهاي مركا حناقة وهاي أنا وحن جعلها قفك إنا نكرباشو wixii dambiyana Allah naga cafiyo dambi dhaafna Allah nooga dhigo waa salaamantiin igu qaat intaas yartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu